Assalaamu calaykum waraxmatullah. Sidaan la wada soconno majaladaha iyo warbaahinada adduunka ayaa hadal haysa go'aankii kama dambaysta ahaa ee uu madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku gaaray in madaxafka Hagia Sophia laga dhigo masjid. Qaar ka mid ah muslimiinta Turkiga ayaa aad u ammaanay go'aankaasi oo soo dhoweeyay, kuna tilmaamay in Hagia Sophia ay tahay goob leh calaamadihii muslimiinta, halka kuwo kalena aanan islaam ahaynna tilaabada ku noqotay qadawa oo ay sheegeen in ay aad uga fog tahay nidaamkii cilmaaniga ahaa ee Mustafa Kemal Atatürk uu sumad u ahaa. Haddaba waxaan idinla wadaagaynaa sooyaalka Hagia Sophia oo kooban. Hagia Sophia waxa uu ahaa dhisme kaniisadeed ee uu dhisay Imbraadorkii Byzantine-ka Justinian sanadkii 537. Waa xilli haatan laga joogo 1500 oo sano ka hor. Waagaasi dhismahaasi waxa uu ahaa kaniisad weyn, hase ahaatee sanadkii 1453 miilaadiya ayaa dowladdii Cusmaaniyiinta jabiyeen boqortooyadii Byzantine, kadibna waxa ay gacanta ku dhigeen Istanbul, waxaana xilligaasi magaalada Istanbul la oran jiray Constantinople. Suldaan Maxamed Al-Faatix ayaa maalin Jimcaha salaadii khudbada ku oogay dhismaha Hagia Sophia si jamac ah. Suldaanka ayaa kolkii dambe ka dhigay Hagia Sophia masjid weyn, isla markaana uu dib u habeen aad u ballaaran ku sameeyay ilaa lagu daray dhismo cusub oo qiblada ama xagga mixraabka ah iyo 4 minaaradood oo dhaadheer. Balse quruxdii iyo qaab dhismeedkii guud ahaaneedba waxba lagama bedelin ee waa la sii qurxiyay uun. Suldaan Maxamed Al-Faatix waxa uu isugu yeeray farshaxanadii waagaa ugu xirfadda badnaa si ay u sharxaan dhismaha Hagia Sophia, waxaana sawiraday masiixiyiintu ku qurxiyeen lagu bedelay sharaxaad dahab ah oo lagu dhigay aayado qur'aan ah iyo qoraallo kale oo qurux badan oo af Carabi ah. Sidaan soo sheegayba, magaca waagaasi lahayd Istanbul inta aysan Cismaaniyiintu gacanta ku dhigeen waxaa la oran jiray magaaladii Constantinople, balse Imbraadoriyadkii Cusmaaniyiinta ayaa magacii magaalada u beddeshay Istanbul, noqotayna magaalo madaxdii ama caasimaddii khilaafada. Qarniyo badan oo uu astaan u ahaa Hagia Sophia dowladdii Islaamka ee Cusmaaniyiinta, kolka ay meesha ka baxday awooddii khilaafada dagaalkii labaad ee dunida kadib, Mustafa Kemal Atatürk ayaa aasaasay Jamhuuriyadda Turkiga ee cilmaaniga ah. 9 sano uun kadib, sanadkii 1953, markii dowladdii Turkiga ee lagu dhisay mabaadi'da cilmaaniyadda laga hirgeliyey, waxaa Hagia Sophia laga dhigay madxaf ay soo booqdaan dadyowga caalamka, waxaana tan iyo waaga u soo dalxiis tagi jiray sanadkiiba in ku dhow 4 milyan oo qof. Balse sanadkii 2013, hogaamiyayaal muslimiin ah ayaa bilaabay olole ay ku doonayaan in mar labaad lagu soo celiyo masjidkii uu ahaan jiray madxafkani. Go'aankii madaxweynaha iyo maxkamadda dalkaasi ku ansixiyeen in masaajidka lagu soo celiyo Hagia Sophia ayaa si rasmi ah loo dhaqangeliyey muddo ku dhow 90 sano oo madxaf uu ahaa. Waxaa mar quraah la maqlay aadaankii Hagia Sophia. Masaajidka ayaa dadkii hortubnaa maalintaasi damaashaad iyo takbiir farxad ka muuqato ku soo dhoweeyeen. Haddaba aynu dib u eegno dhismayaashii loo kala bedelay masaajid ama kaniisado. Masjidkii Granada ee Spain 2003, muslimiinta Spain ayaa ku guulaystay in ay dib u helaan masaajid lagu magacaabo Granada, kaasi oo muddo 500 oo sano ah gacantooda ka maqnaa. Halka uu masjidkaasi ku yaalo ayaa mar ahaan jirtay magaaladii ugu awoodda badnayd ee muslimiinta Yurub. In ay dib u helaan dadyowga Islaamka masjidkani Granada ah waa sumaddii Islaamka iyo kaalintii sharafta lahaa ee taariikhda muslimiinta ku calaamadaysnaa. Masjidkii Babri, Hindiya, sanadkii 2019, dhisme lagu muransanaa ahaana masjidkii Babri ee ku yaala Ayodhya oo ah waqooyiga Hindiya, ayay maxkamad amartay in laga dhigo macbad Hindu ah. Dhismahaasi ayaa kolkii hore ahaa macbad, waxaana la sheegaa marka ay ku beegnayd 1528 laga dhigay masjid, waana marka ay qabsadeen nidaamkii dadyowga muslimiinta ah. Balse sanadkii 1992, dad Hindu ah oo caraysan ayaa ku duulay masjidkaasi, waxaana la sheegaa in rabshadahaasi ay ku dhinteen ku dhowaad 2,000 oo qof.
go'aankii maxkamadda ayaa lagu sheegay in dhismaha dib loogu celinayo macbadka Hinduuga ee Lord Ram. Sidoo kale dadka muslimiinta ayaa la go'aamiyay in la siinayo dhul kale si masaajid ay ugu dhistaan. Hagia Sophia, Turkiga. Dhismahani waxa uu ahaan jiray macbad kaniisad ah oo ay lahaayeen boqortooyo haysatay diinta Orthodox oo maamuli jirtay Istanbul. Rajab Tayyip Erdogan, madaxweynaha Turkiga, waxa uu qalinka ku duugay in Hagia Sophia noqoto masjid ay ku cibaadaystaan bulshada muslimiinta ah, kadib markii ay maxkamadda meesha ka saartay in dhismahani uu yahay madxaf. Inta badan muslimiinta Turkiga ayaa muddo dalbanayay in dib looga dhigo Hagia Sophia masjid, inkastoo ay jireen dad aragtiyadaasi diidanaa. waad ku mahadsantahay daawashadaada. Haddaba haddii aad ku cusub tahay channelka Ogaalsan, subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena cusub.